بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسر دمان بخيرتها ودنا قد ونساي وبرنامج جاران وتلقناي مناسبة الدبالدق عيد الفدرية برنامج كان وحى مرتي يجوا وان عاد وفرح سنة هاي إن إجلس وقايب كلام فنانين تحديجها جيسكا فنانين تحديجها جيسكا وفنانين دلنيراء isku bahaystay ama isku urursaday sidii fanka Soomaaliyeed ay u taageeri lahaayeen dhulkana ay uga qaadi lahaayeen waxaana inta badan xiiseeya in alla inta afka Soomaaliga ku hadashay ee geyiga Soomaalida oo dhan degan barnaamijka waxa gacan weyn naga siiyay Adams Hotel maamulaheeda aad ayaan ugu mahad celinaynaa laakiin bal xidigaha geeska in badan ayaan ku hamin jiray inaan barnaamijka qabto ama aan la soo fariisto munaasabadaha sida ciidaha kale sanadka cusub iyo waliba xafladaha waxaan aad ugu faraxsanahay oo aanan marnaba farxadda aan la soo koobi karin inay hor fadhiyo fanaaniinta xidigaha geeska gaar ahaan waliba iyagoo daad arkaysaan sida quruxda badan ay u soo labisan yihiin waliba barnaamijkayga la qayb qaateen igana aqbaleen codsigayga ahaa inaan barnaamij interview sidan camal aan la yeesho waxa horteeda fadhiya محمد سعيد بيكي عبد الندم كوكو ترانسون كريم ما يعضد ما استمنا وطي بيكي وحن هرت عاد وفرح سنة هاي إنها هرت يدفع ده أديك أيه فنانين تن حديقها جيزكا أو أنت بدن صومالي ده أما لما أنت أفكار صومالي كو هذا شمشي دون تهجوت أما هدكتو أي عادو حيسيان بروح هرت وربحين يرجسيسا فنانين تن حديقها جيزكا كوحدا goorti la aas-aasay iyo waliba sidii loo aas-aasay iyo magaca sidii loogu bixiyay waxaad ku xulateen magacaas aad baad u mahadsantahay horta magaca sidiisuba waxa bixiyay abwaankayga caanka xasan dhuxul laab saalax oo abwaankaas bixiyay magaca xidigaha geesku waa dad midoobay markii horeba iyagoon koox lahayn sax ay isu keeneen ahmiyadooda kala duwan ee fanaaniintu qof waliba hibadii ay isu keeneen marka sidaa darteed koox bay ku noqdeen waxay leeyihiin maamul gudoomiye ku xigeen xoghayn aan ku kala sheego xasan dhuxul laab saalax waa gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska ku xigeenku waa axmed wali ibraahim maxamed furle waa ninka musicianka noo ah marka iyagu xidigii aanu nahay waa ninka dayaxa noo ah dhowr boos baa noo haya xoghayntu mar waxa xoghayntii isagu ay Idris Ismaaciil Cabdi weeye dhowr boos buu isna noo haya maasha Allah marka anigoo soo koobaya waa dadka af Soomaaliga ku hadla ay dhageystaan meel kasta joogaan laakiin waa dad geyiga Soomaalida dhan laga dhageysto laakiin waa dad u gaara Soomaaliland inta badan BK dadku waxay yiraahdaan BK markuu heesaayo waxa ka muuqata yani shucuur hoose anigu mararka qaar waxaan idhaahdaa markaad heesayso anigu ka turjumaya daawadayaasha ama taageerayaashaada qofka uu hayo jacayl waxa daweyn kara BK because dibkii iyo jacaylkii adiga ku hayay ayaad adigu ka heesaysaa kii aniga hayad adigu ka heesaysaa yani boogtii bugtay ayaad markaasi adigu aad taabata ama aad tilmaantaa maxaa dareenta markaad heesaa qaadayso aad baad u mahadsantahay horta anagu gudbiyayaal baan nahay oo abwaanku markuu midhihii noo dhiibo qisadiina naloo sheego dareenkii baanu gudbinaa sax marka xanuunka anaga naguma wada dhicin laakiin fariintii baanu gudbinaa munay adiga xanuunka kuma dhicin laakiin Soomaali xanuun ku dhacay oo jacayl haya ama wiil jacayl ku dhacay ama gabar jacayl ku dhacay ayaa markaad heestaada qaadayso ay ku dawowdaa waxa tahay hubka dadka jacaylka haya ay isku difaacaan wallahi dareenka dhabtaan ku gudbino ayay muhiimadu tahay laakiin dadweynahayaga waan jecelahay maasha Allah aad baad mahadsantahay ma ogtahay inaad leedahay taageerayaal badan anigu isma haysto laakiin dadku marka dariiqada marayso hadii lagu eegeego wad garanaysaa inaad tahay BK may aniga farxad bay igu filan tahay dhowr qof haday salaamaan inaan salaamo adduunyada maxaad ugu jeceshay BK qofkan adduunka ugu jecelahay oo nolol la qaato waan haystaa intaas adduunka ugu jeceshay aad baan u faraxsanahay barnaamijkan waxa gacan weyn inaga siiyay oo aan aad ugu faraxsanahay walaalkeen Ciise mid ku daras masoo ku daraa عيسى أحمد عمر مركا هاس باجرتا قصدي ده هذا ديك شكل هاي أما أبوانك يسمي لحن عيدي صارتي موسيقى عيدي صارتي أربعة ما سنتهي هاستا هذا دتك إيه حاجة ميان كحومين كرا مرنا بحواي أديك ومسكح دي هي مهندسكي قال جاهيد فكرته أنا بفرنتو قد بيني لكن وحسميه حسن دحول لاب صالح لحن كيم برا بيسقالي موسيقى قال جاه وحق فريرستي أحمد ولي إبراهيم محمد فرله التران هذا عنو جيه
dareenka iyo qisaduna madow bixi magaca magacaha maka aqbalay adu kale wad ugu yeedhaa ha waa tahay marka ma waxaynu ku bilownaa heesta xaawa oo barnaamijka hogaaminaysa oo ah halku dhiga barnaamijka ku bilownaa saasan jeclaysan lahaa waa tahay markay talo xaaladkay dantiyo xilliguna gunaa haddaa dhibka ii xamilay xilliguna gunaa haddaa dhibka ii xamilay markay talo xaaladkay dantiyo xilliguna gunaa haddaa dhibka ii xamilay xilliguna gunaa haddaa dhibka ii xamilay haddaa xagaldac ka jiro naftana xasilooli baray haddaa dadka ii xigee miyaan ku xumayn karaa marnaba xawaay anigu adig marnaba xawaay anigu haddaa xagaldac ka jiro naftana xasilooli baray haddaa dadka ii xigee miyaan ku xumayn karaa marnaba xawaay anigu adiga marnaba xawaay anigu inaad tahay ruux hormiyo xilliyo iga mudan xaqo qalbiga uga dhigay xerana xawaay weliga ogow higtooy weliga ogow xawaay weliga ogow higtooy weliga ogow inaad tahay ruux hormiyo xilliyo iga mudan xaqo qalbiga uga dhigay xerana xawaay weliga ogow higtooy weliga ogow xawaay weliga ogow higtooy weliga ogow markaan kugu xidhay duntaan xorkee damay caashaqo xujiyo ka bogsaday hantaa xujiyo ka bogsaday hantaa markaan kugu xidhay duntaan xorkee damay caashaqo xujiyo ka bogsaday hantaa xujiyo ka bogsaday hantaa adooni laab xallay isa noloshu imale wuxuu xasilaa jacayl duriya ka xoroobahaw markii laga jiro xumaha markii laga jiro xumaha adooni laab xallay isa noloshu imale wuxuu xasilaa jacayl duriya ka xoroobahaw
markii laga jiro xumaha markii laga jiro xumaha inaad tahay ruux xurmiyo xilliyo iga mudan xaqo qalbiga uga dhigay xirana حواي ولقى أقول تكتوي ولقى أقول حواي ولقى أقول تكتوي ولقى أقول إلا تهروح حرميو حليو إيقا مدن حقو قلبي أقدقي حرنا حواي ولقى أقول تكتوي ولقى أقول حواي ولقى أقول تكتوي ولقى أقول واتهاي أباد أقوم هاتسنتهاي إن عدكاس يوليبا وحن كلو مهد علينا أبوان كأريضا يلحن كاس iskalaha dib baan ugu soo noqonayaa barnaamijka munaasabada ciidul fidri baynu ku jirnaa ka waran ciidaada maanta iyo sidaad u ciiday iyo maxaad dareemaysaa ciid maanta ciid haddaad aragto waa farxad muslimiintu meel kasta ay joogto ay dareenkooda ku muujiso waad igu soo noqon doontaa waa tahay aad buu mahadsan yahay BK markana waxaan u yeedhayaa Asma Ahmed Asma Love ciid wanaagsan Asma ciid wanaagsan walaalow aad baan ugu faraxsanahay inaan hortaada fadhiyo oo maan dhexda kaga jiro xidigaha geeska ciida ka waran maanta horta aad baan u faraxsanahay sayga muuqato waxaan malaynayaa cabitaan badan iyo xalwo badan iyo waxba kugu baqan thank you walaalow waa tahay waqtiga aniga soo koobaya waxaan jeclaan lahaa horta inaan ku weydiiyo fanka ma adiga jeclaaday mise isaga ku soo jeclaado ku yimi run ahaantii ana jeclaaday marka hadda waa jeclaateen laakiin hadda isjeceshay wali laakiin himladeeda ma gaari barta doonaysa ma tagi insha Allah waad gaari doontaa munaasabada ciida asxaab badan baad leedahay taageerayaal baad leedahay dad fankaaga jecel baad leedahay maxaad u soo qaban lahayd oo maxaad oran lahayd heestaas ayaan ugu talagalay inaan ku dabaaldegno munaasabada ciidul fidriga awgeed dhammaan taageerayaasheeda meel kasta joogaan waan salaamaya asxaabtayda xidigaaga iskanaad baan salaamaya ma sha Allah waxaan soo qabanay hees leedada lacag ku soo dheh lacag ku soo dheh hadii la kici waayana haba la iska jiifo waa tahay aynu wada daawadayaal Asma Love iyo waliba heesta halku dhigeedu yahay lacag ku soo dheh daawasho wacan haddaanad lubiga kuula masalaamaha qalbiga iyankaalula lahaa haddaanad lubiga kuula masalaamaha qalbiga iyankaalula lahaa kusode